kani waa isbitaalka guud ee magaalada Burco waa goob caafimaad iyo caadadeedu inuu bidhaamo oo bilaado dul iyo hoos muddo qarni la ogog leh tan iyo waagii sancadaalaha Ingiriiska isbitaalka magaalada Burco waa mid joogteynaya isbeddello la jaan iyo luga waaqiciga nololeed ee u adeegista bulshada waa hoy iyo hooyo ay ku soo hirtaan bulshaweynta gobollada bariga Soomaaliland mar hadduu mas'uuliyadda intaa leeg ay dumadiisa saaran tahay alla ilaahay waa waajib inuu ahaado mid joogteeya casriyeynta iyo wax ka beddelka adeegyada caafimaad ee ay bulshadu u baahan tahay isbeddelladaasi ay u mudan yihiin ballaarinta dhismayaashii hore jigleelidda kuwa hor leh keenista dhakhaatiir takhasusad u leh cudurrada ay daweynayaan xirfadyahano ku xeel dheer adeeg bixinta caafimaad intaasi waxaa weheliya qalab caafimaad oo casri ah iyo dawooyin tayo loogu iisho mar haddii intaasi xil la iska saaray alla ilaahay waa hubantii in la helo adeeg bixin caafimaad ee ay bulshadu u golmoonayd aan idiin tusmeeyo tallaabooyinka horumarineed ee taariikhda galay ee taaka loo qabtay ila dhugo sheekada haddii aad wardhagood ku haysay haddeer dhab u dhugo oo dhaayafayow ku eg in maalin uun la sugayey tanoo kale haa waan hubaa inay kugu cusub tahay intiina badan laakiin nin wax u fiirsaday oo fallomaguray ogaalkeeda leh aynu kowninaano horumarkaasi taabo galay ee aan awal hore ka jirin cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana ka mid agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdiraxmaan Warfa oo ah mas'uul ka soo dhalaalay hawsha adag ee bulshada u hayaan ayaa ugu horeyn ka warbixinay bixinta mushaaraadkii shaqaalaha iyo hawlaha biyo kama dhibcaanka ee ay dhab u qabteen xilli ay kormeer ku yimaadeen maamulka heer gobol iyo heer degme ee magaalada Burco cisbitaalka guud ee magaalada Burco horta hosbitaalka Burco waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay hosbitaalada ugu waaweyn ee wadanka waana hosbitaalka labaad waa hosbitaal ay u dhameystiran yihiin agabka caafimaad ee lagu shaqeeyo iyo dhakhaatiirta takhasusada kala duwan leh baaxad ahaan qaabili kara bukaanada gobolka iyo wadanka oo dhan inta ugu badan qaabili kara hosbitaalka xaaladda uu ku jiro hadda waxa weeyaan xaaladii ugu fiicneyd ama marxaladii ugu fiicneyd buu ku jiraa wax kastaba sidiisiba u shaqeynayaan shaqaaluhu waxa weeyaan shaqaalaha waliba hosbitaalka Burco waa shaqaalaha moogtahay waqtiyo duruufo adag ku soo shaqeeyay waa shaqaalo u baahan in loo mahad celiyo iyagoo habeen oo dhan u soo jeeda bulshadooda say ugu shaqeyn lahaayeen oo moogtahay guryahooda ugu yimid hosbitaalka u seexda unbaan marmar aroortii ku soo toosnaa social media waxyaabo dacayadu iska jira waxaasina waa kulley waa cid dan gaar leh hosbitaalku waxa weeyaan habeen iyo aroorba uu shaqeeyaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhalinyartaasi maamulka ee barasaab ku-xigeenka iyo maayir ku-xigeenka ee iyagu yiri waxaan meelaha ka aragna aamini mayne sidoo hosbitaalku u shaqeynayaan ayaan soo ogaanaynaa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leeyahay hosbitaalku waa hosbitaalkii Burco ka maamul ahaana maamulka loo isbedelaa waxa weeyaan anagu waxaan ahay nin dhakhtara meelo badan ka soo shaqeeyay hosbitaaladana kala garanaya maanta hosbitaalku marxaladii ugu fiicnaad uu maraya ha ahaato xagga shaqada ha ahaato xagga siday u helaan shaqaaluhu mishaarkooda oo intii ugu dambeysayba mishaarkoodana si fiican u bixinayna saddexdii bilood uu joogay maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa ka marakacay inay maanta u mudan tahay intii uu jiray cisbitaalka Burco agaasimaha aad buu ugu mahadsan yahay wuxuu ku mahadsan yahay runtii inuu halkaa maanta ina soo tusay cisbitaalku inuu aad iyo aad u shaqeynayo waxaan indhahayaga ku soo aragnay qaybtii dialysiska ee dadka kaliya xanuunaya runtii lagu meedhayay waxaan tagnay qaybtii ICU-ga ee dadka maaragtay xaaladoodu ay aadka u daran tahay runtii ay ku jiraan waxaanu tagnay qaybtii radiology-ga iyo ICT-ga iyo ultrasound-ka labadaba oo qalab aad u casriya runtii uu yaallo waxaan tagnay qaybtii traumada iyo dhaawacyada degdega oo iyadana runtii lagu soo gudbiyo oo cusub waxaan tagnay shaybaadh casriya runtii intaan garanayo cisbitaalka guud ee Burco maalinuu maanta ka fakshan badan yahay oo ka qurux badan yahay oo ka qalab badan yahay ma jirto raxmad shilkuna meel walba wuu jiraa saxaafadda wuu ku jiraa bulshada wuu ku jiraa social media wuu ku jiraa waxaanu leenahay dadka reer Burco warka wanaagsan sii daaya Burco iyada isugu jirta xilka isugu jirtay barka sii daaya waxa wanaagsan ka sheega taa marka laga yimaado dhakhtarku aad buu fiican yahay kormeer baan ku soo sameynay dhammaan qaybaha kala duwan ee dhakhtarka aad iyo aad buu wanaagsan yahay kulley bulshaduna marka isku tashato un bay wax qabanaysaa waxaan u sheegaynaa dadka danaha gaarka leh ee doonaya in dhakhtarka Burco xidhmo dhakhtarka Burco ma xidhmo
xidhmayo been iyo kaliib yaroo la duubana ku xidhmi maayo waxa joogta saxaafad hore soo gudbinaysa waxa meesha jooga kaliib si youtuber ma anfacayso dhakhtarka burco oon karaysaan dhakhtarku halkii ugu sareysay uu maanta maraya isbitaalka guud ee magaalada burco waxa uu markii ugu horeysay soo kordhiyey oo qayb gaar u sameeyey waaxda dambiyada caafimaadka ee loo yaqaan forensic unit waaxdan ayaa ka caawinaysa bulshada inay jawaabo degdeg u helaan dambiyada caafimaad sida kufsiga dhaawac muujinta mayd baadhista iyo cadaymaha kale waa kan Dr. Abubakar Maxamed Xasan oo ka warbixinaya waaxdani fadligii waxa markii ugu horeysay isbitaalka weyn ee Burco General Hospital inoo suurta gashay inaynu midayno qaybaha la xiriira dambiyada caafimaadka qaybahaas oo kala ah refertada ama dhaawac muujinta mayd baadhista iyo kufsiga qaybahan markii hore waxa lagu eegi jiray qaybo kala duwan oo isbitaalka ah laakiin imika waxaanu sameynay oo dejinay dhismo u gaara dhismahaas oo dhammaantood si toos ah looga soo xiriirto xirfadlayaasha caafimaadka ee qaybtan ka shaqeyn doona ayaynu kor u qaadnay qaybahan aynu midaynay ee loo yaqaan forensic unitku waxay ka caawin doonaan hay'adaha garsoorka iyo CID-da in ay si toos ah ula shaqeeyaan isla markaana dambiyada caafimaadka la xiriiro dhan ay beeshanadii halkaa ugu soo hagaagaan oo ay ka helaan adeeggeedu dhammaystiran waxaa markii ugu horeysay la qalabeeyey oo si rasmi ah loo furay waaxda daryeelka gaarka ah ee loo yaqaano ICU Intensive Care Unit ama ICU taasi oo ay u dhammaystiran yihiin imkaaniyaadkii farsamo iyo dhakhaatiirtii ka howlgeli lahayd Dr. Farax Mubaarak Cabdiraxmaan bal hadda hal iyo laba ha inooga sheegto muhiimadda ay leedahay qaybtan ICU iyo nooca adeeg bixineed ee ay bulshadu ka faa'iidi doonto bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxa weeyaan bulshada dhan waan salaamayaa gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisana waxaan u sheegayaa ogeysiinayaa in la furay ICU-gii oo uu soo shaqaynayo kaasoo ay diyaar ugu yihiin dhammaan maxaa la yiraahdaa imkaaniyaadkii ama waxyaabaha ay uga baahnayeen ICU ay u aadi jireen maxaa la yiraahdaa Hargeysa sidoo kale waa wada diyaar qalabkiisu wada yaala qalab ICU looga baahan yahay wax ka maqan maanta ma jiraan waxa kale oo joogay ka helayaan oo diyaar uga 24 saacadood buu shaqaynaya shaqaale loo soo carbiyay oo shaqada si fiican u gudanaya waxa kale oo jooga oo isna laga helayaa dhakhtar ku takhasusay ICU-ga oo u gaara oo isna looga keenay Ethiopia dadaaladaasi qorshaysan ee lagu tayeenayo adeeg bixinta caafimaad waxa ayana ka mid qaybta daryeelka ilkaha oo ballaadhin iyo dib u casriyeyn lagu sameeyey waxaa lagu soo kordhiyey qaybta loo yaqaano X-ray ilkaha oo ay weheliso casriyeyn xagga qalabka iyo kordhinta nooca adeeg ee u hore qaban jirtay Dr. Cabdiraxmaan Cumar oo ka howlgeli doona qaybta ilkaha ee isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa inala wadaagaya fariimo isku sidkan oo muhiim ah magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Cumar waxaan ka howlgeli doonaa aniga iyo Dr. Mukhtaar isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaan leenahay dadka reer Burco isbitaalka weyn waa meel public ah oo dadka loogu adeego isbedeladaasi aan kala joogsiga lahayn ee ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay isbitaalka guud ee magaalada Burco waa waxqabadkii 100 maalmood oo kaliya oo baarka laga jaray ujeedada looga gol leeyahay waxaa soo dadaalihina waa in kor loo qaado adeeg bixinihii caafimaad ee isbitaalka waa shaqo adag oo ay qabteen maamulka isbitaalka guud iyo ka wasaaradda heer gobol oo isgarabsanaya waana mid ay markhaati ka tahay bulshada waxaa kale oo guul la taaban karaa in maamulka isbitaalka Burco ay ku guuleysteen keenista qalab casri ah oo aan hore u jirin kaasoo si waafi ah kaalin muuqata oo mug iyo miisaan leh uga qayb qaatay howlgallada caafimaad ee ay sameeyeen waaxyaha kala duwan ee isbitaalka magaalada Burco waxa ayana xusid mudan in maamulka isbitaalka magaalada Burco ay meel ku tiiriyeen gunooyinkii iyo mushaharaadkii shaqaale weynaha isbitaalka Zakariya Jaamac Faarax madaxa maamulka maareynta iyo maaliyadda isbitaalka guud ee magaalada Burco oo ah madaalaha dhexda u xidhay shaqadana adag ee isbedelka ka socda isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa isna tilmaamaya muhiimadda ay leedahay isbedeladan ay sameeyeen waxaan dadweynaha gobolka Togdheer iyo magaalada Burco ogeysiinayna waaxda qaliinka ee isbitaalka Burco oo ay ka howlgalaan dhakhtarka takhaasuska sare ee qaliinka guud dhakhtarka takhaasuska sare ee qaliinka lafaha dhakhtarka qaliinada hooyada iyo dumarka oo 24 hour available 40 saacadood bil heli karo qaybaha qaliinka oo muxuu ahaayay markii hore 3 tiyaatar ah
la kordhiyey la balaariyey iminka 5 tiyaatar la gaarsiiyey sidoo kale cusbitaalku wuxuu soo kordhiyey qalabada saacida waaxda qalliinka ee cusbitaalka sidoo kale iyana waaxda wadnaha cusbitaalka Burco waxa ay markii ugu horeysay soo kordhisay mashiinka wadnaha ee loo yaqaan iyadoo sidoo kalena la kordhiyey tirada mashiinada wadnaha ECG ee cusbitaalka hore u taalay Dr. Cabdiraxmaan Dr. Warfa agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Burco oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca wadnaha iyo daweyntood ayaa isna tilmaamaya muhiimadda uu leeyahay isbeddelkan joogtada ah ee ay sameeyeen magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Dr. Warfa ahna dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca wadnaha sidoo kalena agaasimaha cusbitaalka Burco General Hospital maanta waxaan noo farxada inaan ballaarin ku sameynay cusbitaalka Burco waxaan ugu bishaareynaa inay ka faa'iideystaan Dr. Nabil Al-Jawhari waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalka guud ee magaalada Burco waxaan u dirayaa fariinta Assalamu alaykum wa rahmatullah I'm Dr. Nabil magacaygu waa Dr. Nabil Al-Jawhari waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay qalliinka lafaha waxa aan khibrad buuxda u leeyahay qalliinka lafaha waxaan ku shaqeynayay muddo 20 cusbitaalka Burco waxaan ka howlgalayay 3 sano ugu dambeeyay patient will come first we have for cold cases and OPD waxaan marxaati ka ahay adeega wanaagsan ee cusbitaalka Burco oo hayo bulshadiisa waxa uu noo yimaada bukaan socod badan oo aanu la tacaalo xanuunada kala duwan ee haya kuwaasi oo aanu wax uga qabanno qaab xirfadyahanimo and waxaan wax ka qabanaa dhaawaca lafaha ee muuqda iyo kalsoon iyo dhammaan waxaanay natiijadu noqotaa mid togan waxa kale oo aanu wax ka qabanaa xaaladaha degdega ah ee aanu la kulanno waxaanu fulinaa 90% howlgallada caafimaad ee aanu qabanno waxaanu haynaa qalab caafimaad oo aad u wanaagsan iyo xirfadyahanno aqoon buuxda u leh caafimaadka ugu dambeyn waxaan ku dadaalaynaa inaanu mar walba horumar joogto ah ku samayno qalabka aqoonta lagu shaqeynayo si aanu adeeg wacan oo caafimaad ugu qabanno bulshada ku xidhan cusbitaalka to serve the people of Burco and give them the good what deserve the people of Burco deserve from services. Dr. Rabi' Al-Asad oo isna ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa isna ila leh Dr. Rabi' Al-Asad from Burco General Hospital I'm specialist in general and laparoscopic surgery waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud iyo qalliinka waxaana ku shaqeynayay xirfadan 18 sano Burco waxaan ka howlgalayay 3 sano and during these 3 years we achieved too many services for the community of Burco muddada 3 sano ee aan ka howlgalayay cusbitaalka guud ee magaalada Burco waxaan wax ka qabanay xaalado caafimaad oo aad u badan waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inaanu sameyn karno nooc ay u tahayba qalliin kasta oo caafimaad mararka qaar waxaan la yaabaa waxa ay dadku aadaan Itoobiya iyo dalalka shisheeye iyadoo halkan laga helayo imkaaniyaadkii farsamo qalabkii iyo aqoontii wax lagaga qabanayay xaalad kasta oo caafimaad no need to go to Hargeisa and no need to go to any place because same treatment you will get here or in the USA it's same waxaana sidoo kale la qalabeeyay oo la furay xadhigana laga jaray waaxda dhaawaca degdega ah ee loo yaqaan trauma waaxdana ayaa ay dhismaheeda hirgelisay hay'adda khayriga ee wada halka ay qalabaynta ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalka guud ee magaalada Burco waa maalin ay cusbitaalka qayb kaalin muhiim ah ka jirta lagu soo kordhiyay maanta waxaynu xarag ka jaraynaa dhismaha qaybta dhaawaca degdega ama traumada kaasi oo ah ahmiyad gaar ah u leh cusbitaalka iyo dhammaan bulshada taasi oo ay noo diyaarsan yihiin meelihii dadka laga lahaa dhakhaatiirtiina ay noogu diyaarsan yihiin soo kale waxa cusbitaalkii noogu diyaaraa qaybtii sawirada oo CT scan-kii iyo X-ray iyo dhammaan ay joogaan dhakhaatiirtiina waa inoo diyaar kaliya waxa naga dhinaa oo nagu yareed dhismaha alxamdulillah waxaan uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ugu horeyso ururka khayriga ee wada oo uu hogaaminayo Sheekh Aadan aad bay ugu mahadsan yihiin oo ahaa iska lahaa dhismahan hirgelinteeda wasaaradda iyo dhakhtarkuna waxa ka qayb qaateen qalabayntii iyo dhakhaatiirtii joogtay si loogu shaqeyn lahaa marka bulshada waxaan leenahay insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan wax badan ka tali doonto baahiyaha inoo imanaya dhaawacyaha haday yihiin howlaha kale gunti geejiska ee lagu guuleystay waxa ayana ka mid ah
in boqolkii maalmood ee tegay maamulka cisbitaalku ay ku guulaysteen bixinta mushaharaad 4 bilood la waana markii ugu horeysay oo 4 mushahar oo xidhiidha la bixiyo muddo 10 bilood arrintani ayaa ah soo kabasho wax ku ool u ah habsamiyo socodka howlaha shaqada cisbitaalka iyo xirfadlayaasha caafimaad ee ka howlgalay dhakhtarka maadaama 6 bilood ee ka horeysay 3 bilood u dambeysay aanay mushahar qaadan shaqaaluhu